kalgacalkana kugu soo bariije boqoradii haweenkaay وهاجاج داوديال ده نجم صار إن عيان فنانين عن كلا دعين فنان كا سيدا وين سومالي وتقنوا فنان كاسي أو لقوا مقعبه فرحان حدك إيوه فنان ذكره عن كده عنا هستاسي كل اللغين سي كلتون بعضه هستاسي وين كجد بدونا وهايد فورتان كبرنامج كنا أو عن كسر دوين إيوه فرحان حدك أو يسوي قرب كي بدح قرب تفرديا قبل كم من صورة ودن كا مريكان كا برنامج كاسي أنت هنا جود قلنا مركورة عن كسر دويو فرحان حدك كل سنة قبل كم من صورة يستوديين aad iyo aad baad u mahadsantahay cali xaraare ee soo dhaweynta aad igu soo dhaweysay stuudioga iyo Minnesota waan ku soo dhawaay horta marka hore weli kuma sheegin farxano inaan siyaasad ka waraysan doono iyo inaan fankii ka waraysan doono laakiin fanka dib baan u dhigan doonaa oo ku qarin doonaa heesaha weliba aan doonayo inaan ku weydiiye aan ku bilaabo muqdisho tagtay muqdisho maxaad ka doontay maxaa jiray maxaad soo qabatay maxaad soo aragtay muqdisho cali xaraare anigu weligay muqdisho waan maqli jiroon ma tegin waa markii ugu horeysay marka sababta aan u tagayna waxay ahayd isdhexgalka bulshada iyo inaan maartay wacyigelin ummadda Soomaaliyeed iyo dibtii inaan la soo qaybsano marka gudoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqa magaalada madaxdii hore gudoomiye Tarsan ayaa anigii fanaaniin badan oo kamid ahay nagu marti qaaday marka sida ninkii ugu horeeyay ee taga martiqaadka oofiye ama loo oofiyay baan ahaa marka inaan joogay 3 wiig oo qura sanad iyo barbaan soo joogay marka oo dheeraatay waadiyad marka kuma oran karo muqdisho ma ku cajibis waxaad muujinaysaa in aad uga hesho 100% waxyaabaha dareenkaaga kiciyay wadaninimo maxaa ugu weynaa xidigood saartay waxa ugu weynaa oo soo arkay ayantii iigu farxad badnayd waxay ahayd ra'iisul wasaarihii hore Saacid oo mahiga inuu la kulmo ay ahayd iyaan anagu ballan la lahayn markaasuu yiri fadhiga ii fadhiisiya fanaaniin qaran baa ila joogta farxan xidig marka ayaantii iigu farxadda badnayd ayaan tabayd ana nolosheedii loobay marka ergeyga qaramada midoobay waa la ka hormariyay oo la nagu hormariyay tiini baa la qiimay taayda waaya waxaan daawaday clipyo video oo muqdisho uga jooga sax marar heeso wadan iyo laga hadlayay oo aad dabeetana ilmaysay sababta qeyradaas maxay ahayd farxan macallin Bashiir saaxiibkay oo aad iyo aad halkan uga salaamayo wadani dhab ah oo maartay professorkaasi anaguna saaxiib gaar baan inaguna saaxiib gaaratiin kolkaan ka wada sheekaysanay ma sha Allah marka waa nin wadaninimada iyo Soomaalinimada ku weyn tahay marka erayadii ama heesihii hore si loo yaqaanay sida ay imika saameynta imika ay tahay ama waqtiga 7ka ay joogto oo u bedelay baa iga qeyraysiisay marka aan u soo noqono dhinacii Minnesota oo maxay sababta socdaalkaaga socdaalkaygu cali wuxuu ku saabsanaa London baan ka soo boqolay inaan madaxweynayaasheena Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan Sheekh inaan soo dhaweeyo oo Mareykan ku soo dhaweeyo siiba Minnesota ayay ahayd marka sababtan u midaysabay iyagana waad kulanteen si fiican dabcan maadaama fanaan weyn tahay oo Soomaalidu si weyn u yaqaanaan gobolkana dadka laga filay inay hore u soo boqdaan aad kamid ahayd maxaad isleedahay barnaamijka waa dadka u soo bandhigtay oo udub dhaxaadkii fanka Soomaaliyeed ama maartay kuwii ugu waa bariya jooga sida Axmed Cali Cigaal Hiba Nuura iyo dhalinyartan fanaaniintan dambe oo maartay Hodan Cabdiraxmaan Dalmar Raxmo Roos Fartuum iyo Dalmar Yare iyo Xamiid wixii dhalinyartii oo dhan aad bay soo dhaweeyeen marka waxay la galay barnaamij baan ku sameeynaya soo dhaweynaa halkan Minnesota jimcaha soo socda bisha 22 Ox haddii la yiraahdo safari hoolkiisa baan ku dhigaynaa insha Allah marka ay fanaaniinta udub dhaxaadka fanka Soomaaliyeedna ay wadaajinayaan ama ay la dhigayaan insha Allah farxaan oo heestii aan ku furnay barnaamijkeena sax ee ahayd ugu dhararan ugu adahay iyo celi heeska waxa sameeyay nin buwan saaxiibkay oo ilkajiir la yiraahdo milaha oo London jooga marka aniga kaltuun baa qaadina marka ugu baafintaadiyo boqoshada kalgacalkan kugu soo bariije boqoradii haweenka biyada la moodiyay
midaan baafinaayeen bilistaba dhammaantood kala soo dhex baxaaye waa badharayo samo wa bishaara khayr badan wasiidaan baryayno rabbi inaagu beege الكثير بس مية ilkajir baa sameeyey فنانة كرتون بعضها كل قادس ila qaadis ان waxaad haysa badan la qaaday fanaaniin waaweyn oo hawlada waa bari ka mid ahaa Sax. oo runtii qof u badheeri karaa inta badan uu yaryahay ah markaad u hollatay inaad la haystid saare axmed ah maryam mursal ah iyo aamine cabdilaahi yaa mina marxaladda markaad marisay maxaad dareemaysay xidigo waxaan aada iyo aad ayaantii maryan in badan baan iyada wada hadli jirnay kalsooni weyn bay isiiso waan wada hadli jirno kama naxayn mase ayaantii u naxda badnayd waa markay saare axmed aan la haysay sahra markaa kulankaygu markii noloshayda intaan noolahay maalintii iigu horreysay ahayd su-aal baan weydiiyey waxaan ka idhi habar waxaan doonaya inaan kula heeso waay markaasay tiri heeskeed doonaysa in la qaado markaasaan heeskii u sheegay nin reer minnesota ah oo asad la idhaha oo yaa fankayga isna xiisay oo saameyn weyn igu yeeshay marka hees baan doonayo kolka hore inaan la qaado edheynabtiyabayo adooyonoy xasan deeriyo xasan diiriha la qaado markaasuu yidhi asad wuxuu yidhi war farxaan saare axmed hadday kula heesayso oo hees ay kula qaadayso heesihii xasan aadan ay wada qaadi jireen bay dadku jecel yihiin aniguna kolkaa dhab ahaantii waan jeclaa heesaha markaasaan idhi habar waxaan doonaya heeskiina iska bedelo on heeskaa kasii fiican bay tiri marka xasan waa legend soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed jeceshahay dee marka anigu jacaylo aan jecelahay heeska un baan u qaaday marka xasanna waan weydiiyey marka xasanna dee wax dhiba uma arag marka sidii baan sahra heesihii laba heesood baan qaaday waxaan qaaday hees mi igu badnaaye inaan qabo haraad weliye inaan qabo haraad weli hareertu haraari tahay inaan ise la haboon tahay igu iga jiro xaggaga wayuhu iga ka horjoog marka heeskaa iyo markii dambena waxaad la heystay markaa markii dambena waxaan la heesay aamine cabdilaahi baan iyadna la heesay oo hees baldhan iskugu baydh ay kuli cooda qaadi jireen maryanna aniga la qaaday maaragtay buur baa kuga gudbanay innaba farxaan oo yaraantaadii meel ma dhigatay maryan baad wada heesi doontaan saaraad wada heesi doontaan aaminaad wada heesi doontaan may meesha ma soo dhigin because aniga jabuuti nasiib intaan yaraana may iman saare axmed iyo maryam mursal iyo jabuuti may iman iyo aamine cabdilaahiba markii aan qurbo soo galay ay yimaadeenna dee qurbaan joogayba jaanis iskumaan helay kaltuun bacdo waad isku wanaagsantihin kaltuun markaan kuleeyahay waad isku wanaagsantihin waa xiriirka dhinaca fanka si fiican iyo heesaha si fiican ma townkiina isu soo dhadhow oo mise sidiina kale ayaad kaltuun waa qof aan biyo soo wada cabno jabuuti baan ka wada nimidnay so marka waxa weeyaan si gaar aan u dhaqaaleeyaa ma aan u ilaaliyaa marka waa gabadh aada iyo aada xushmad iyo ixtiraam badan marka sidaa daraaddeed codkeyguna waan ismaaj garayna marka fanaaniinta waxaa jira iminka xasan aadan oo kale allah u naxariiste xalimo khaliif magool wuu la heesi jiray fanaaniin badan wuu la heesay mise sahre axmed buu jeclaa oo mar walba wuxuu yidhahdaa nacam sahra ayaan dee heesuhu inta badanna ula qaaday so marka waxa weeyaan qofba fanaanba gabadh baa imaaj garayn karta marka kaltuun saan iskugu badannahay waa sidaa fanaaniinta dambe dhalinyarada waxaa lagu xantaa inta badan heeso fanaaniin hore oo waaweyn ay lahayn bay ka daba qaadaan fanaaniinta howlada waa beri ka mid ahaa qaarkood way ka xumaadaan in hoostooda iyadoon la weydiisanba ay suuqa gasho dabeetana la daawado eedda inta badan loo soo jeediyo dhalinyarta dambe si fiican isuma difaacaan mana sheegaan sababta ay waajib u tahay ama ay u jeclaadeen inay hees qof kale ay qaadaan kuwa aan qaadinna way jiraan heeso cusub samaystaan anigu shaksiyan farxano waxaan hayaa 3 heesood oo fanaaniinta waaweyn oo hobolada waa beri iyaga laftooda ay iska daba qaadeen si fiican maxamed salmaan baa ka mid ah waxaa ilaa naxariisto waxaa ka mid ah xasan sabater waxaa ka mid ah saare axmed waxaa ka mid ah faysal heesaha waxaa ka mid ah hees la yidhaahdo axadda axmed rabsha qaaday samater ka daba qaaday inamowe ka daba qaaday ay saa u socotay si fiican adaa ku watay caliyow heeskan kale baldhan iskugu baydh nimbati maxamed ruwaadda ku jiray
saalax qaasim baa ku duuban oo qaaday xasan aadan baa qaaday maxamed axmed kuluc baa qaaday anaa qaaday I think barrono inuu qaaday marka fanaaniin badan heeso badan oo ay dadku la qaadaan axmed naaji heeskii qaabiil bahaabiil markuu qoonsadu dilay saare axmed baa qaadaysa ha waxaan dadka daba ina daawanaya si fiican aan jeclaysan lahaa inaynu hees u doorno heesaha ka mid ah waxaan u doori lahaa weliba heestaada magaceedu noo sheegi doonee mar adigoo Australia jooga oo koofiyad weyn oo Australiaanka u eg hees aad ku qaadid oo inta badan dadku ay YouTube ka daawadaan si fiican magaceedu muxuu ahaa cadceed heesta waxaan ka codsan doonaa farsamayaqaankeena oo maanta oo control roomka inoo joogo cabdiaar heesta cadceed ee weliba markaa aad u egtay Australiaanka Australia aad joogtid heesa Djibouti lagu duubay koofiyad weyn aynu daawano شمعيو إليسكاس شقي صوت بختيسي شعاعي عطعيو ريحشانيو توبانيو شمعيو إليسكاس شقي صوت بختيسي شكلي قاقو روحديو هناك شوبان با جعيلي قوشي ربايي شكلي قاقو روحديو حناك شوفان با جعيلي وشي ربايي aan sheekaysano shuruudaynu dhigane shacni iyo wanaagi shabadii ideeqday aan sheekaysano shuruudaynu dhigane shacni iyo wanaagi shabadii ideeqday مشورنا عشقا مشوشوبنا عشقا مشوشوبنا عشقا مشوشوبنا عشقا مشوشوبنا cadceed saaxiibkay waxa sameeyay xaji dhagayare la yiraahdo ama xaji dubay xagu joogo Australia London laakiin Australia way meesha ku qaaday may meesha Djibouti lagu duubay marka Djibouti lagu duubay waay Australia mara joogtay marba fashion iyo dhar qaadashada iyo aynkaas mar baan ku arkay marba ka qabshamay waa nin tukaan lahaaba waa ayaa yiri dharkiisa iyo sidaas oo markaa oo dhar badan igu qiyaasay xayisiis way marka wuxuu ku adaa turqiyo weyn way farxan dhalinta dambe marka eegtida heesaaga qiimo inta laga badsiisa maxaa isla way fiican yihiin mas'ad fanaaniinteennii hore abwaanadii hore iyo fankii hore lama gaari karo waayo waxa weeyaan raggii hore xilqaan way xilqaami jireen marka waxay dadka soo hordhigayaan waxay aad bulshada way wada fadhii jireen oo dad meel wada joogo oo isla saxayo oo wixii khalad iyo isku talaabay mise halkan waxa weeyaan nin walba qol keligii buu joogaa ama laba qof ama qof qurun baa la jooga marka waxa weeyaan tala badan iyo tusaale badan ma helayo marka sidii fankii hore u kala leeyahay qiimo saabaxeed marka fankii hore waa fan aan la gaari karayn waa waxa weeyaan aad iyo aad baan u hambalyeynaya ama inaan xasuusano oon mar walba qalbigayga ku jiro ama aan xusno waajib u muday haddii talo ay isku talo noqdaan maxaa soo bixi kara meesla de haddii dadku imika meel heeska aad qabatay aad istiraadid waxa weeyaan musiciankiina meel buu joogaa kii laxanka ku saarayna meel kale uu joogaa marka wixii islama joogaan marka dhandhankii sidii hore ay u lahaan jireen uma laha sababtu waa taa way marka aan kula kaftamo markaad la heysisid fanaanada kaltuun bacdo kale
ood heestii stage fuushaan dabeetana wada ciyaaraysaan aada isugu soo dhawaataan aada isugu jajabnaataan dhinacaasoo kale marka maseerka laga eego nin fanaan xaas leh siday noqonaysaa farxan maxaad dareenta may waxa weeyaan waa hadba qofka biniaadanka sida aad nolosha aad reerkaaga ama aad u maaraysid haddaad dee nin baydhbaydh badan tahay way maseeri kartaa shaki way malaya mise haddii aad qof toosana tahay wax dhiba ma keenayso yaraantaad oo kale fanaaniinta soomaalida kuwii waa beri ee waaweynaa iyaad codkooda dhegeysan jirta ood ku madadaalan jirtay wiilasha oo kale markaad eegtay ragga waxaan aada u dhegeysan jiray hadday jabuuti noqoto waa cabdinuur laale iyo saciid axmed qoor baan dhegeysan jiray ilaa naxariiste hadday soomaaliya noqotona dee kulley fanaaniinta fanka soomaaliya fanka jabuuti cirka dhulka isku jira fanka jabuuti waa wax kooban fanka soomaaliyana waa bad so markaa waxa weeyaan ani waxaan aada u dhegeysan jiray xasan aadan samatar waxaan u dhegeysan jiray cumar dhuule allah naxariiste waxaan dhegeysan jiray axmed cali cigaal waxaan dhegeysan jiray maxamed nuur gareeg waxaan dhegeysan jiray axmed mooge liibaan dhinaca dumarka intanaan la heesaba waan jeclaa مريم مرسل سارة أحمد آمنة عبد الله خضر الظاهر مقول الله ونحرسته كنسي حاجة يبقى نورة كنسي واي مقالة لنا واحد قلت معه بينتها مقالة شيئا نع فنك سماده مركز لقى هاللي أكله مركز قيمة سيد مقالة مكاتب من يابلس جوبر كان من صورة مركز سوق برجريس اللي بدو اسم ميزانتي صح سيدا كل مقطع كلي و iscaabinayaan waayo waxa weeyaan dhalinyarta xaggaa joogta iyo dhalinyarta xaggan joogtaba labadaba waxa weeyaan laba fankoogu xawaaro ku socdo ana dadku aad u xiiseeyaan soo marka waxa weeyaan ma kala jeclaysanayo farxan haddii aan ku weydiiyo fanka heesaaga oo kale markuu doonayo inuu qofku heeso wiilii gabadhu xudun ahaaday arrin barasho iyo dadaal ku jirtaa miyay soo geli kartaa mise waxaad leedahay waa uu dhalasho codku oo qofku intaa uu u dhashay unbuu la iman karaa laakiin wax dheeraada lama iman karo tusaale ahaan oo kale aniga oo kale oo codkaygu haddii aan israado hees inkastoona heesin laga yaabo in carruurta la xereeyo oo la yidhaahdo meeshan hawl kalaa ka socota heese ma jiraan codxumada oo kale inta ila mida ma la odhan karaya dadaal hadday sameeyaan wax way la iman karayaan mise waa uu dhalasho waxaad leedahay maya fanku dhalashadii way jirtaa oo hibe ilaahay qofka gaarka u siiyey marka dee horeyna waa ka loo yidhahda shimbirba codkeed cide qofku waxa weeyaan qof walba cod gaara ama haybad gaara uu ilaahay siiyey baa jirto oose marka dese qiimeynta fanku dhalasho weeyaanoo wax la barto badiyaa ma aha waa wax qofka ku abuuran oo dhalada waay la qabsashada musiga oo kale ama teembada waxaa soomaalida tiraa marka la doonayo heesta inaad meel ka soo geshid dabeetana musiga uu kaa daba dhaco la qabsashada teembada aad la qabsanaysaa inta leeg bay ku qaadanaysaa waxay ku xidhan tahay sida tilmaamta lagugu tilmaamo qofkan ka horeeya waayo mar walba uu fanku qofka bilaabayo qofku wax dee dhaladkii waxa iyadna jirta haddana barashadii inaad sidii loo tilmaami lahaa kolka fankaad soo gelaysid waa dad baa ku tababaraya ama kuu tilmaamaya ku hooda tusaaleynaya waa hadba siduu qofka kuugu hagar baxo markaad gabadh la heesaysid townkeeda iyo codkeeda intuu gaadhsiisan yahay gabadhaa iska celi oo challenge gal miyaa ku qabanaysa mise sidii nature ahayd ee aad u abuureed ama aad u samaysneed baad u heesaysaa iskuma mashquulinaysid in gabadha codkeeda aad maya sharci waxaa jiraba dumarka iyo raggu isku cod maaha marka waxa weeyaan rag dumar waxaa jira bataatan aanan ragga la heesi raggu dumarku way la heesi karaan oo ninkii u degi kara mise ragga waxaa jira rag aan dumarka la heesi karinba sababtoo ah waxa weeyaan waa inaad gabadha codka aad adigu xagga iyadu ka raaxaysan lahayd adigu waa inaad hoos u dejegtid ood markaa base aad kaga qaadid mise haddaad tiraahda aniga halkaan doonayaa la iiga tumi gabadhii waxay ku noqonaysaa xadhigga ma gali karto soo markaa waxa weeyaan rag iyo dumarka mar walba tanaasul waxa sameeya ragga markaa ragga badiyaa la heesa dumarka ku badan sida xasan aadan oo kale iyo axmed cali cigaal oo kale iyo waxa weeyaan waa rag gali kara hoos iyo sare iyo dhulba gali oo la qabsaday farxan xidig oo dhinaca kale musiga tumistiisa hadday noqoto kabanka organka ama pianada whatever ay noqotaba iyaga ma isku daydaado marmar markii iigu horreyseen fanka bilaabayay baan sidhay habaratid kabanka marka waxaa laiga yidhi bidix laataho waa in xadhigga dhanka kale baalka dhanka kaleba loo wada bedelaa marka waagaabaa bes maskaxdaaba igu xidhantay dib bowmaan dooda waad guranta miya markaa waan guranay laakiin de guranaanta haddaad isaga xag kale u jeedisid soo lama garaaci karo de mayer ninka guranba imika ku adeero xudeydii baan wada sheekaysanaa marka adeero xudeydii wuxuu iga yidhi adaaba ku fiicnaanayba marka qofka bidixlaha ayaaba ku fiicanba
soo markaa waxa weeyaan waa dee waqti dhacay bay ha sheekada waa lagula gaadhay laakiin waxay u eg tahay adigoo yidhaahdo koob dhegla oo kale mid bidixda loogu talagalay mooyaane kan midigtaa loogu talagalo ma qaban karo marka koobkiina cid walba way qaban karaa aan dadweynaha ina fiirsanaya ama ina sugaya hees kale oo ay ku raaxaystaan inana dhegeystaan aynu ugu yeedhno waxaan anigu odhan lahaa heesahaaga mid ka mid ah oo kolley runtii anigu aan aada u daawado oo aroor hore meel hees aroor hore la yidhahdo marka dooqa weli anaa wata dooqa adaa wato malaha waxaad ka dhandhaminaysaa raggii hore maxamed warsame qaysaali fanaankii legendka ee magool ee dooxa jooga ayaa heeska midhaha iyo laxankaba marka wuu kusoo diray adiguna waad samaysay australiana lagu soo tumay miisiga markaana waan ku qaaday waaya heesta qazaali uu sameeyey aroorihii hore iyo daawasho wanaagsan onkodiyo hilaaciyo saxansaxa udmoon uda waa naftaydo aroor hore cirkoo subax onkodiyo hilaaciyo saxansaxa udmoon uda waa naftaydo aroorihii hore waan jeclaa inay xoogaa sii socoto hase yeeshee waqtigu aanu noo samaxayn aan ka gudubno farxaan xidig mar kale ayaan ku noqonnaa london iyo dhinacii fanka waxaa jirta hees iyaduna aada loo jeclaystay oo dad badani runtii aada uga heleen oo wadanaya oo aad mar qaaday heestaa magaceeda waxaa la yidhahdaa maandeeq ama hashii maandeeq lixdankii baa la qaaday maxamed axmed kuluc ayaa heestaa qaaday dabeetna adiga ayaa mar kale cusban siiyey bal heestaa iyo sheekadeeda igadha waxay ku dhacday waxa weeyaan maanta waktigii calanka la helay ee soomaaliya ay isjeclayd ee wadaniyiinta ahayd ina maanta wadani laga dhigo oo dib loo walaaleysiiyo oo walaaltinimadii iyo muxibadii soomaalinimo in la soo cesho ayaan aniga xudeydii adeero ka sheekaysanay marka maxamed axmed kuluc baan intaan gaarigii ay kaxaystay aan u tegnay markaasaan kala sheekaysanoo nidhi heeskaa inaan qaadnaan doona markaasuu yidhi heeskaa maanta anigu waxa weeyaan da' baan noqday oo maaragtay ilaahay caafiya wuu yar xanuunsanaya maanta markaa adaa caafimaad qaba aduu qaad waana waktigeygii waanan kuu fasaxay buu yidhi marka heeskii maalla hasheena maandeeq saa baan u qaaday luuqdeeda in yar bada farxano gowdo candhaadii gola marise
an maaloo hashee namaan deeqe dhaxaan murugiyo haraad mudane maantay curatoy mataanayse an maaloo hashee namaan deeqe mugowdo candhadi gola marise an maaloo hashee namaan deeqe. aad baa mahadsantay waa hagaag codkaaga runtii aad buu macay waana tolmoon yahay isla fankii haddaynu kusii soconno farxaano maxaad is leedahay caqabadaha hor taagan in fanku sidii markii hore aad ka dhawaajisay in horumar fiican laga gaadho oo soomaalidu ay noqdaan fanaaniintooda kuwa sidii kuwii hore loo jeclaa oo kale loo jeclaado caqabadaha idin hor taagan maxaa ka mid ah caqabadaha waxa weeyaan sidii aan kuu sheegay cali waxa weeyaan hadday wuxuu meel la wada joogin oo la istusaaleynayn oo la istoosinayn oo wixii xilqaan wax la yidhaahdo oo bulshadan ummaddan macalimiin bay u ahaayeen fanaaniintii hore ama dadkii fanaaniinta qaranka ahaa ummadda waxay u ahaan jireen macalimiin dhab ah oo wixii hadba la doonayo ka turjumaya bay ahayn so marka maanta waxa turjumin la-aanta keenaya waxa weeyaan waa keli socodka iyo gooni socodka marka ina tayo la yeesho waxa weeyaan gacmo wadajir bay wax ku gooyaan fanaaniintii hore marka urur iyo tayo wax ku qabanaya saa daraadeed buu fankii horena taariikh u leeyahay ana u yeelan doonaa kan dambe hadday isku duubnaadaan heesaa markaad qaadaysaan farxaano midhaha oo kale ma dhadhansataan midhaha heestaad ku qaadaysa heesaha boqolkiiba boqol waxa weeyaan anigu commercial ma yihi oo caroosyada kama heeso xafladahana iyo gaargaarkana badiya kama heeso waana markii igu horeysay barnaamij faneed aan gaar sameeyayo halkan Minnesota so marka waxa weeyaan anigu shaqaalaan iska ahay fankuna hobby buu yahay waayahay laakiin waad dareemaysaa in fanaaniinta dambaysa qaarkood markay ku qaadayaan in midhaha qaarkood uu khaldan yahay oo ay ereyada iyo sanadka afyaan in waxa weeyaan waxa keenayo waxaan oo dhan waxa weeyaan dalkii burburay iyo keli socodkan eese haddii ay dadku jamac ama gebi meel isla joogaan ama hay walaashadaan oo meel wada joogaan waxa weeyaan qaladkii iska kala qaban karaan waxay odhanayaan tan sana ku fiican kana sana ku fiican marka raggii hore xilqaanka is xilqaamayeen wada jooga iyo wada tashiga ay ahayd haddii su-aalkan aan ku weydiiyo dhinaca horumarka ah oo xaggiina dhalinta dambe fanka adoo jooga Minneapolis haatan oo kale si fiican gabadh joogta London ma la heesi kartaa si fiican musiga idinku waa labadiina maqlayo heesta aan la dareemin in qof meel joogo waxa weeyaan qaybteediina waa loo dirayaa anigana qaybteedii waa loo soo dirayaa waa la isku mix gareynayaa marka isagoo xaggaa joogay iyo anuu xaggaa jooga dhib mala marna abwaankii aanad la joogin baa heesta email kugu soo diray emailkaad kala baxaysaa kii laxankaa kugu soo diray markaasaad gooni u samaysan adduunka teknolojiga imika waagii hore dee fanaaniintii waqti bay ku qaadanaysay heeskii ina la maqlo ama buumi noqdo mase imika waxa weeyaan mar alle marka studioga mixinka la dhameeyo minutka ugu horeeya loo tiro adduunka koona ilaa koona all of the world waa laga dhegeysanaya so marka waxa weeyaan waa teknolojiga iyo waqtiga casriga farxaan xidig inagoo joogno gabagabadii barnaamijkeenan waraysiga fankaaga iyo socdaalladaadiiba aan kaaga wareysanayay intaynaan dhamaystirin waxaan marka ugu horeysa kaa codsan doonaa aniga iyo dadweynahaba inaad noo doortid hees aad aada u jeceshahay oo kamid ah heesahaaga laakiinse intaan heestaasi aynaan gelin in marka hore iyadoo aan music lahayn aad dhadhankeeda na maqashaysa in xafeefan kaayar dhigtay caliyo maanta waqtigu sabanku waa susuma waqti adag buu joogaa Soomaali waxa weeyaan kala gees bay kala taagan tahay meeshan aan ka hadlayna waxa weeyaan waa meeshii ummadda laga hagaya ma laga hadlayay media marka waxa weeyaan adiga de su'aashan ku weydiiyay wariye wadaniya oo hadalka xubintiisa yaqaana oo professional ayaa tahay contribution ama maxaad adiguna qaybtaada uga qaadan weyday TV-ga qaranka waayo maanta waxa weeyaan TV-ga waxa dhaliil ma sheegayo dadka ka hadla ama wariyaasha ka hadla meel ka shay doonaan ha joogaan dhaliil ma sameeyna balse waxa loo baahan yahay maanta qof hadalka xubintiisa iyo wadaninimo ku leh oo tayadiina leh maaha maanta 4.5 maaha waxyaalaha kubadda fanka maaragtay wariyaasha wixii professional oo dhan 4.5 maaha horta aad baad mahadsantahay farxaano inkastoo su-aashaadi wax hadday oo aan islahayn
فرحان سؤال بكويدين دولار صح waxaan meel dhigtay isaga dooraysan doonta صح. laakiin si hadaan jawaabteeda ku siiyo ها adiga iyo dadweynaha dhegeysanayba ها waxaan anigu ahay dadka kamid ah in wadaniyadu sida dareenka aad leedahay waa kala mid صح lamida صح leh waana jecelahay in dalkayga iyo dadkayga u shaqeeyo صح laakiin waqtigu marba wax la maraya marxalad صح weliba waxaan ku hanweynaa anigu waxaad ka hadlaysaa in t v iyo soomaaliya loo shaqeeya ها waxaan niyaddaygaga jirtay inaan tago muqdisho صح والو باهي oo dadkayga iyo dalkayga baan u tago سفيان marka igama badna meel kastaba hela gaadhay waana ku dadaali doonaa insha allah tacaala taa anaguna garab iyo gaashaan baan kuu siinaynaa maadaama wixii tayale iyo wixii soomaalinimadu ay ku weyn tahay inay is urursadaan soomaaliya markaa lugaheega isku taagay balse nin walba hadduu koona taagnaado waxba marka heeskaagii haddaan usoo noqdo heesta igu noqdo heeskan kugu noqdo waa hees orideyda aan u qaaday oo la yidhaahdo raxiin marka heesku waxa weeyaan rasmiya ilwaadey reexaan udgooney rabbi tuisiiye ragna iga hormarisaay ama ramadka geelo meramalle doogliyo rug barwaaqa joogo kaymaha ruuxaaya raxin oridayday wacdkii rumayso reerkii daryeesho ubadkii rabayse rafiiqii naftayday raalliyayna tahay rugtadii la yegleeshiyo aysiyo barwaaqo rabitaankii noloshay raaxiyo wanaage raja aayahayga aysiyo barwaaqoy rabitaankii noloshay raaxiyo wanaage raja aayahayga qayoodo abar lagaga raystiyo raxmad eebba shubayo loo wada riyaaqay marna roob qayoodo abar lagaga raystiyo raxmad eebba shubayo loo wada riyaaqay